maanta oo ah maalin khamiisa taariikhdu ay tahay 1 bisha 12/2006 halkan waxaan ku diyaarinay bandhig dhaqameedka foorada ama fasalka sare ee afraadka ee dugsiga sare kaasoo aan ugu talagalnay in uu noqdo midaad aan horay looga aqoon jirin ee saaxadda ku cusub sidoo ogsoontihiin baa fasalka foorka wuxuu ahaa maalintuu iskuulka ku soo biiray kii goob istaagantisay haddana waxaanu jeclaysanay iskuulka maadaama aanu ka sii baxayno inaanu uga tagno waxyaalo xus mudan sidoo ogsoontihiin baa hidiyo dhaqanku oo waxaanu anagu u leenahay hidde halkan waxaa yaala oo u jeedaan dhiishii durbaankii haantii xeeradii way noqon doonto maanta waxaynu ku cusub xeeradu laakiin hidde horey loogu lahaa geeskan kale garabkii waxaa fadhiya inama iyo hablaba kaasoo ku xidhabkii ku labisan hidde iyo dhaqanka barnaamijku wuxuu yeelan doonaa faqrooyin kala duwan oo xiiso leh 3 baan u kala qaadi doonaa qayb suugaana iyo qayb tusmaha oo tusaalihii halkaan aad ku arkaysaan haddii aan leedmo iyo qaybtii kale soo hadhay ee ahayd ciyaaro 3daasaan u kala saari doonaa barnaamijkuna waxaan ku furfuran doonaa qowlkii eebe qowlkii ilaa aan qalooc galayn qaariga aqriya ku qushuucayo adna qaasimow dhagta noo qadari haatana waxaan u yeerayaa qaariga quraanka inoo aqrin doona sheekh Cabdullaahi Xasan Jaamac أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام فأما الذين آمنوا في قلوبهم مرض waxaanu jecelnahay inaan barnaamijka hadiya dhaqan aduu yahay waxaanu hiddo lahayn heeso waxaanu jecelnahay inaan ku bilowno barnaamijka hees inoo ah hiddo dhaqan oo madar iyo kooxdiisii ay noo qaadi doonaan hadii alla
وحادكنا وقارة لينا وقرتا عركا شتاقت وقارة انتهي وحادكنا وقارة لينا وقرتا هربوري وقذنيو عنقول وحادكنا وقارة لينا وقرتا يبقى حليو يبقى حليو وزنيو عنقول وحالكنا وقارو لينا وقرتا القدود عنقب الدون حين وحالكنا وقارو لينا وقرتا يبقى تليو يبقى مدوم وحالكنا وقارو لينا وقرتا ما تيك الذي نوصل شيء ولماذا يدخلوا ما تيك الذي نوصل ولماذا يدخلوا kooxdaas oo lagu furfurisay heestii barnaamijka lagu furfuriyey haatan haddaan waski ambaqaasan barnaamijkeedii waxaana lagu soconayaa horta marka hore waxaan weydiinayaa ardada gadaal nooga soo bidhay barnaamijkan waxa weye barnaamij ay qabsanayaan ardada foofoorada waxaa barnaamijkan sidaa ogtihiin howlwadeerka ahaa oo ka shaqeynayay isku dabarigtiisa macalinka maxamuud sheekh macalinkaasoo aad iyo aad isku howlay iyo ardada aan ka howl yareen madar iyo xasan iyo ardada kaloo la siman haatanna waxaan galagalaynaa kelmadii macalinka aqoon lama marsho lama maahiyo mudankiis magaalada ku magaciisu yahay guul maahiro macalimiin dhigtiyo maamulkuba midkooda yihiin haatanna waxaan kusoo dhaweynayaa meeshaan bara ka mida barayaasha oo ah maxamuud sheekh aana baalkii guddoomiyaha kooxdaas kusoo dhawo maca بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أدعو مهزيهن أرضكم برنامج كان سوء أبابلي بداية دقنكا ونكا عاون دونا لنا عبران بغن إن شاء الله تعالى باهوتنا يمان دونا حفرتنا أرضا فوفوك أي صور أروريان وصودقين بغلقي بسقاشا أما بغلقي بسقاشا يليرات هوشا يقع لها يقع نسكد بريدي برنامج كودا تفسد iyo hagida aan lahaado laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa si guud iyo si gaar ahaaneed baadada foorada oo su'aal sugu hawlay gabdho iyo wiilalba waxaan oran karaa waa mid qura oo sanadka guulaha aan taabanay ay ka mid tahay ardadii in la hor keeno aga badan oo inaan weligood indhawada ku arag oo laga rabo imtixaankan ku keeni doono magacyadooda oo hadda laga rabo inay ururiyaan oo ay bartaan oo ay qoraan mid kasta waxa la yiraahdo ama shay oo meeshii alaabta meesha tiilay oo kale alaabta meesha tiilay shay ka qoran inuu yiraahdo oo aad aragtay waa wax daruuri ah oo ardayda laga wada rabo weeyaan aad loo mahadcelinayaa waan soo dhaweynaa waqtiga gaaban awgiisna mahad ilaahay baa iska leh si guud iyo si gaar ahba waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardayda furfurada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo xagga imtixaamaadka naka caawin doona xagga aqoonta guud dad badan oo aan horey u arag inay maanta kaga faa'iidaystaan indhahooda la hor keeno arday badan ay isku soo hawlaan ardada kamid isku hawlaan barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka wax badan oo ka maqan way jiraan laakiin wax badan oo xagga iyaga aqoontooda ku saabsan way soo urusheen wax badan oo inaga kaga maqan xagga hidaha iyo dhaqankana inaga dhexdan dhan way jiraan insha allahu tacaala aan cashar ku qaadano ama sidan oo kale barnaamijkaan u keeno oo ardada saas hortooda loo soo dhigay waa waxaan dhammaan ka wada faa'iidaysan doono weeyaan hidaha iyo dhaqan marka la yidhaahdo dhaqan waa taqaaliid dhaqanka marka dhaqan xun iyo dhaqan fiican labadaba way jiraan innaga waxaynu qaadanaynaa dhaqanka fiican baynu qaadanaynaa dhaqanka fiicani dhaqamo xun oo laga soo gooray waa jireen laakiin waxaa lagu bedelay dhaqamo wanaagsan baa lagu bedelay dhaqamadii xumaa waxaa ka mid ahaa dumarka oo kale maarisma istiri jirinin waa laga wareegay timaa way qaawan jireen waa laga wareegay waajibaad xijaab baa la qaatay dhaqamadii heesihii iyo dhaqankiidii dhaqanka ahaa waynoo taagan yihiin weli waa bartoodii godintii iyo hangoolkii weli waa halkeedii oo waa la wadaa geedigii iyo dhaankii iyo awkii la raraayay la furaayay weli waa halkeedii geelii la maalayay riyii la dhisaayay iyo xeradii iyo digaxaadkii iyo hangoolkii iyo udurkii iyo aqalkii weli waa halkoodii kamaynaa goorin laakiin wax badan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barnaamijku waa inoo sii socon doonaa iyo iyagu waxaad ujeedaa halkan waxa weeye dhalinyarta qabta dhaqanka ka waran bal dadkeena aan ku labisano suuqa maanta lagu marayo isu eegyahay dadkaan quruxda iyo haybada bal maanta inay sharaxaad naga siiso horta sidaa adigu aad u sheegtayba dharkan iyo dharkii hore ismin maaha waxaan guda gelaynaa qaarkii hadal lama ifo maag lama gashay kiiba ulo hanaankii yaqaan baan la haydiyaa haatana waxaan ku yeerayaa maxamed cabdiqaadir cabdan oo noo akrin doona saarka bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan rabaa inaan qaado saaf ku cusub saaxada iskoolka najaax waxaan arkaa ciidamada baanbayda ka ah madar royaagtaagana muusikadiisa wata mikrofoonkana waa wadaagi doona sidaa ula socda laakiin intaan saaka gelin waxaan rabaa inaan ka horeysiiyo jacbur yar oo wuxuu ku saabsan yahay hablaheennii hore soomaalida iyo kuwa haatan socda farqiga u dhexeeya jacburku wax saabsi weyn maahan waana sugaanta qayb ka mid ah wuxuuna ku bilaabanayaa hablahoodanay lahayn hawlka giigsan bay lahayn hadalka gaabsaday lahayn hoygooda hindisay lahayn hadalladan dambeetiyo hay baby may aqoon isyaryaalka beenta iyo filmada la fiirsada iyo faan bruujna may arag siyaasadahan dambeetiyo 30% may maqan hadda waxaa socotaa dhilaal gabadha lagu guursanaya tiraahdo 30% xoolaha ninka Ameerika biyahay wax lagu foorariyo Facebookna may aqoon fariidana way ahaayeen Fiverr may aqoon fucking bastard may noqon family iyo fashion may aqoon I am online iyo imo may arag inta hadda wadana jacburka saarkan bilaabayna haysi jamska inagu waa muunado intii mayasoo cuntiyo dhirto ma ku soo baxa isaga masalooga dhigay maadii kale waxaan lahaa inta madaariikh waa bado magacu waa badan yaho inagu miishaar abliyo mugdiga meel laga bashiyo moqor ee laga cabiyo misbaax ifayaynu nahay runta maadii kale waxaan lahaa intaasoo macallino cilmiga marinayso inay magaceena iyo inay maskaxdeen dhisaan ayaa mudurkoodii miyaan magaceesanin runta maadii kale waxaan lahaa intii madu daacado masaladii naga xuniyo wixii masaruur ku jiro iyagu maaraynaye runtii madaraahaye miyaan magaceesarayn runta maadii kale waxaan lahaa ardaydu waa muurado masaabiixnoo iftiyo mirihii waddankeena iyo masiirkii maanta iyo mulkiga boqortooyadiyo mulaaxdii weeyo iyaga lagu meel mara runta maadii kale waxaan lahaa ardayda idinka weeye waxaan rabaa saarka inay halkaan ku joojina ardayda sii wato waana salaamati waay waa heeg baa ka dhacday waa aad baa loogu filayaa هذا هو كويدية يلو فانبرش أنا كاسين بتاعنا فانبرش وعنا كنال سو هندي أو سو سيدان قبلها هذا روح دعوية مسلسل وحاول أركي قبله بالك كليو أنتي واحد دعوينه قبله أركي دعويه كليو ما واحد سنك عادي كليو هذا لا شيء يسوي كليه هساوي كله تبغى جاري دوناي هذا لا شيء قبله واحد كلنا هذا حادث يقولي تايو شيء عليه تايو فانبرش ما بعرف كم مثل بدرو قبله هذا البرتين والله يا فانبرش فانبرش لما قبصان كله أبور لما بوريو ولماذا ما هرو نينا وحي لغو كما إلان كران هو دعوت كماله وابرام وحا حتى نوير يا فايسو عمر موسى ساي ينواق سبرام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل من كفري سلام دولين نفوت كم بلاغيا انت تبين نموت حتى نقلو وحان كوتا بصوت شجيرك طلعوا ساقاتي هيا حسوس درب كل شيء تهكنا دمن وحالنا عنكرك لحيا ميلتي ليك لا جاي هيبة لها فلا أتون يقول إذا تبتغي هدي شرفي حسوس بدي تلكي أو حاد قلنا عند بيانيا دادي
sida dhaawac baan dheebka ilaaliyaa dhaqanku waa midkaygii baan ilaaliyaa bulsha yahay baawul baan uga doonayaa allahayga yeela sidii aan ka rabay halkaan haybada calowdeesi rabiyowna taaba qabo oo soomaali isku raaci sidii isku garabgalaan aad iyo aad iyo umaadsantahay gabadhaan noo akrinaysa barnaamijka haata waxaan ugu xigi doonaa geela haddaan barnaamijka mar labaad ku hesho barnaamijku waxa weeye barnaamij bandhiga hidiga dhaqanka ay qabanayaan xukuumada koonfurka ardada dib uga soo bidha waxaan u sheegayaa inuu barnaamijka yahay barnaamij hidiga dhaqameed waxaan gelaynaa barnaamijkeegii geela ayaa noogu xiga daamaloxlay daamankaagii daldalowna aahid mooye dadba qoriwa sidaa ogsoodtiin geelu soomaalidu wuxuu kaga yahay meel aad iyo aad u muhiima walow gabayaashii hore soomaalidu ay gaarsiiyeen aakhiranimaa geela lama amaanay meeshaasay gaarsiiyeen geela waxaa noo soo akrin doonaa geela heesta geela cabdiraxmaan maxamed axmed kusoo dhow بسم الله الرحمن الرحيم واحد جرو قصة فصل كفوفوري وعلي لي يا سيدة روحوا قاضي يا سقيلة ولي وهروينتي ولي مركوع القلب ولي ورابا ورديو ولي أدك عنشري ولي ولا قولي ولي قبل ناصا ولي قهر حقتيو ولي جدك وقوم ولي وتنصوغني ولي يتوحمتي ولي اسم كيدا ولي ومصعبا ولي ومصعبا ولي أتقرتو ولي وتمافرو ولي قتل مصري بلانتيga dhawaaqii ninka dhudhubeeya sindaa dhawaaqii dadka maqasha laba goor iyada dhinac kale aadine dhaxanta leelka dhacaysiiyo habeenkii horgeeta hobeya la wanaagsanoowa ayu bal halkaa ila soo istaag niyo waxaan u malaynayaa kaalay laba kaa qayla badnaa maraa xilliga hooyo aa yarayd ilmo yaraahay horta waa kuweydiiye bal lagu heesiyo ma lagu korkoolin jirayo ilmaha yarkaa marka qaylo badan ilmo qaylo badan intaa orda ooyayo waa la korkooliya anaa ku korkoolinaya maanta hobeya la wanaagsan war balowkaadiniyo qof inta hadda halkaa fadhiyo qof aan dhib laga soo marin mana qofkasi waa ooyi ooyintad baa ani kaliga uma gaaran adba dhibka lagu soo maray ilaahay baa ogaa adiga waa ku dhib badnayd baa umalanaya ooyinta haatana waxaa u yeerayaa say noogu akrito heesta dhallaanka mastuur saciid yaasiin heestii caruurta ay ahayd waxaan noogu soo xigi doonaa barnaamijkayga ayaan soo gudagulaynaa waxaan ugu xigayaa ariga madalayo wallahi ma lagu waramay waxaa jira waayaha waxaa jira bal waxaa noosii dhaan doona asiya ismaaciil maxamed soo dhawaad
goray maadaha waqanido oo in loo qulaa laga dhiishaa laga daashtaa goray gorada oo garbaxasta annagii ay ka foweynile buuxa hoosiyo basarada daaka lagu maraha amba leeqabo maqlaay warlaay maqlaay warlaay ma lagu warramay waxa jira aqliga waa baryo la waraabsho beeray maqlaay warlaay in wax la istaaro la walaalayahay maqlaay warlaay maqlaay warlaay ma lagu warramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo idin maqnayn oo idin saharin ما شاء الله تبارك الله. barnaamijku wuxuu ahaa hidiya dhaqan saad u socodsiinba halkani waxaa fadhiya qolyaha gadaal ka soo biiray halkani waxaa fadhiya barbaartii ku gaashaanay dadkii dhaqanka iyo hidaha haddaan usii gudagalo maantana hirka hadafkoodu yahay dhaqankii hore oo hidaha wacnaa oo la haybin jiray inay nagu hagaan oo nahorkacaan bay waqti u hureen haddana waxaan u yeerayaa qolihii inoo ahaanta inoo ruriyaa waa laba gabdhood si fiican baad u arki doontaan baan filayaa horta ciir la bixiya cidima arag baan umalaya dadku waa baadiyaha waa ku cusub yihiin oo magaala loo badan yahay marka maryan maxamed iyo aamina siciid baan ku dhaweyn باي بالله يذبحني. بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج جديد دقنك وقيت هانك وانتم هاندي waxa maleynaya haan lagu leeyahay waxa baar oo dhalinyarada iska haydeen wali hamal waxa ma ahayn marka maanta idaha dugsiga sida haanta loo lugo nabaayo beesheen waa beelaceebeed ayaan subagalay bibin ayaan soo baxnay oo dhan ayaan bilistu ii shirin baayoy bulloy ii bax dan iyo fiid waan fadhiyay shilkay uma foolxumayne fagaaraha kaama baqayne intaan fiirsaan lahaa nin fidisa waa saliide fagaaraha ka baqan aan yahay digdigo dhabad yar waagii dharaarawuye adna maadanaanaane saar qaraaro keensuba gaasuubiga ragbaa kumaane yaalayn bilaawayne adna dhiigu kugu qubaane daryaan maxaan yahay daryaan oo dirigle daryaan oo duul jiifaki daryaan oo kofake daryaan oo duul maqanoye maxaan yahay digdigo dhabar yar waagii dharaarawye adna maadanaanaane saar qaraaro keensuba gaasuubiga ragbaa kumaane yaalayn bilaawayne adna dhiigu kugu qubaane aniga subag waa yeesheen waxa mal waa burcad daryaan هذه هاي دريان أو درجلة دريان أو دول بيفكي دريان أو دول مغنية دريان أو دول خدير دساحب سوى دوايا شيء ما في أريجا نصوح لأن كذب سوى الشيء لنا نودي ما تفهم gabdhaha loo akrinaya heesta marka la bixinaya caanaha soomaalida hore markay caanaha bixinayaan hees bay ku akrin jireen bal hees yar aan gabdhaha ku ammaanayo hadeer aan bal akriyo gabdhayahow gurbood kale midab garab casaan kale isku duubni waanba dhinaciina taalo balandhigoo dhawaaqin idinkoo dhudhuubin sekandarina jaaxda laakiin wada shutaala intaas baa tixda yarta aan ku amaanayay haatan waxaan kusii soconaynaa heesta badarka ninka gaaban ha guursan markuu geelu cadhoobo galluu ka dhayaaye waxaa noo sii akri doonaa markaa kaa gaaban muwaalantaya say ila hadlaysaa waxaan malaynayaa dee geelu halkaan maka dheriyaysaa mesdirna loodeen ninka gaaban ha guursan dee waa soo socotahay balorta galluu ka dhayaa weli waa lagu sidiray muxuu geelu cadhoobo waxaa noo akri doonaa baalka noo akri doonaa heesta badan kaisahu man iyo aasiyatu macalin
kusoo dhawaad halkaas aadi laba ul inaa keentaan bay ahayd laba baak gacalo saddexdan kaaga diyaa kaaga daydiyaa gacalo kaaga diindigayaa gacalo ninka gaaban ha guursan gacalo madugelo cadoodo gacalo bakasaka magaaro gacalo indhuhu ka dhayaa gacalo ninka kasi ha guursan gacalo oo waxaana u guursan gacalo marka geela dhaqaato gacalo gabgab buu wataa gacalo gegidaha la dhigaa gacalo gabadh buu ka tagaa gacalo gablan buu ku badaa gacalo taasi waa igataa gacalo sukalaasi hayaan gacalo ninka waalidu roon gacalo ninka weesa ku taal gacalo kaadaadari way sidoo gacalo gabadhaada how gacalo gablangeeri godhow gacalo adaga gacalo adaga mobilba gacalo mobiriiri laba gacalo madame nasiiba gacalo madayuusniba gacalo masagoy gacalo ishabaaka dhaqaad gacalo ilalaa isuwaar gacalo walaalka waxaa ku jira ninka dheer xaguursan igoo doonay ahay maafilaya maaha sidaa mooda maaha ninka gaaban baruga haatanna barnaamijkan kusii shaqaynaa saddex bele bal kala door nin bilaawo lala dhacay nin badweyn la caaliday ninkii baani guursaday karaan tegay kolleyba waxaa lagu yaqaanay baadiyaha dhalinyaradu waxay ciyaari jireen shax waa tan loo hamuuman yahay waan filayaa haatanna waxaan kusoo dhawaynayaa shay halkaa shax inoogu dheeraa fagaaraha jaamac cabdicasiis maxamuud ورجع هشي على وضعك سيمر هذا قال هيك حيث بلد ورجع عدايس السلام عليكم ولي ورا غيرك ورا المايكا ورجع وانا كذا قال بقى في رساله انا هو اخو على اساس هذا محل قال ما كان قال انا واقف استمع waxay geeljira geel wada jira waana kala jira marka aan geela wada laashanaya maalin soo boorka dhulka ku jiido shaxda ka badiyay maanta wax masku haysa oo meela shaxaysa halka ma jeexna walaade shaxda waxay isa qabtaa waabay maalin kasta waxa la joogtaa iska bootaysaa habar yahay caanaha habar yahay arka وصاري ما ندري وني هو ماشي قرآن قاعد وربنا لا فديه وأنا كابديه وأنا صدق ربويه شيء والما تدعو حسوا يسوع هل كان فدناي شيء صوغره هذا ديار ثاوي أرجع لي وحلاك الجديد شو خبر بعتها ديار بعتها ما تصوغرني وحي واكن صوفي سوريا هباتي بوقران
haye wariga horta wariga tanaan tegi tanaan door sana jambaan moodi taasi aan tegi wariga maa godkaas ay u gaada godka la noqo maalin walba godkaas ay u gaada la noqo godka waxaa guleed baa la guleed guleed والله ما أنت أنا ماشي بورك أصلا على جديد تاسنا لكن على جديد حاول هذا الله بقي يلا بدنا نيجي وهم ما كابل يجري صدق حرام كولا هذا كان كوكو درو لما هذا باكل مصر كريسان يصير والله بالله طلع سولا لا سولا حتى باتي قبل ستة لبات كيك على وده حتى دقال صاير يقول حلو ويني فوق كي يواس تاجو حيقة وديار وانا أنا فور قال جل قد بحقه قال بحقه السوري أنا يا دابو تدو حسن كاغا كلي ميدي تناقض كلي ميدي زيرو حاولت شذا كلا حاولت شذا يا ستر أنتاليا مدر سعيد يا حوامات سعيد هذا الشراء horta anigu sidoo ma qaxaano gaadiyaal labada kale leeyahay wadaadina maalqabeynha jiray waxa weeye hooyadii markii ugu horeysay dee waxa weeye aan magarantahay hooyadii aan dimaan loo fursan waxa weeye waxa u bannaan inuu geysana gabadh gayaankiya ugaadsado gabdhaha anu heerig kama helo gabdhaha heeriga godoreebkana kama helo idan waxa weeye af soomaali noo dhexeeyey waan waxa weeye dee xaasaawada caadi naga dhexeeyay sii dhaqan kaan jiray wayaan raadsadaa intaana waxay leedahay dee raggu markuu guursanay waxaa lagu yaqaan xarago badan goy shaalkaana waa sitaa saacadda hadiyana magaalada loo dirsado macawiska basarina waa sitaa kabu waa sahal waxa weeye haddii aan labada kale leeyahay marka waa inadu waxa weeye garayskii iyo waxa weeye intii dhaqanka lagu yaqaano xiran wayaan raadsadaa waxa weeye niyo reer axsuud halka derisay waxa weeye markaxaasaanu ceelka walbaad waxa weeye aanu aan u aroo jirnay aan reeraan naqaani waxa weeye in aan marku axkaan bidhaansaday baa isma muuqatay sawata اسمه صدق waan ku salaamay gabadh yahay Waxaa qaaday video. waxaan filayaa reer xasan ka dersina oo aanana horus ku cusbeenaatay oo maranaya Ha waan. gabadh yahay garayskiyo googorada culus iyo gaa weli haroogan deekaa ka timid gurigeennaysa Qurxanka maqlaysay guriga ka soo baxayna ka bugeeya xilguna ku weeyaan. taagaysan gabadh yahay naamahii nin goolmaan oo gubashiya haraadkada waxaan horseed geen haybtiina guud iyo gacalkaanay Haysigu gartaa weeye gobay caadadeed tahay. Ama garo ama ha garan guri. Galaan leenahay geel iyaguna maraa. ayadana garwaaqsadee geeliina sumadiisa gartaxaydka gacalka ma gabadh guuri labaad oo gurgi dhawood la guursaday oo weli gagaan bixin ina gabadh gashaantii gorsada noqotay Iliyow galgalashadaadii way soo gadaal bixin. Weli gabar yar baan gurigoodii joogteen. Gurihay la soo gelin. ninkasi hadalkuu godan yahay oo inkastaana gunti hayno hadalkuu godan yahay haatana gar qaataye magacaa gaarkaana gabadh yahay bali sheeg oo midaan garanayn ana garasho qabno goobta isugu niyo magacayga gaarka gacalo weydiyo hadalku waa guriyo baare haataawihiga garabaxayo gabaygaa soo celina magacaa gaarkaana gabadh yahay bali sheeg Waadiga gubanaya magacayga goobaya geeyaa lay dhahaa. geeyo waa gabaa faran gabadh loogu yeeray geeyo kuma arag Geeliba kunuun cabdilashada hortiiga waa gid lagu yaqaan gaawaha u qaadaa waxba ku kasarayo goonyaha meerin
gobodii ujeedada godka hadalka ii sheeg garabka garwaaqsi doonaa waa yahay geeyo marka hore garaad dumar waad u garasho wacan tahay marka xiga guulaha nabadgeli intaa waxay dheer gabadheeda ku waayahay garaadow marka hore nin gabar rabaa gaaf iyo aroos jecel samir gaaban ayaad noqon ana gore haldaayo hayga dhigin galab la soo fiirsaday meesha ku jirtaa loolaa intaa taqaaniisba mida kalena waxay tahay inaad hees ammaana ama gabay ama geeraa idin qaadi hees ammaana ama gabay ammaana iyo xoolo soo maha waa ilaa waan beerka beeli qofki waxa weeye horta dee markaan deeta kasii yaraa waxa weye aroosyada la tegi jiro heesaha iyo gabayada iyo waxa weye laguma tegi jiro xagga xoolaha hadda kolley waxay kuli xatima reerkayga xoola yaraan baa lagu xintaaye haddii alla bayna kedi leeyahay gabadh yahay horta xujadii reerka waa furaya way sida habeenadan uurdadaan laataa furkumadii jacaylkay haleelayo eegala isaare kaan hawasiyo hablaha kale waa habeenkaa doortaay wataan heshine hawraarkiyo haasa waha dhamayne markaas iga furan waa talabaade xoolihii baa hari soo maha gabadhiya waxaad yeeshaa waxna wax laba qof yaal waxna wax laba reer yaal wixii laba qof yaal laga dhabaysaa xooluhu waxaad shaqo ku leedahay ma waxa weeye annaga aabaha wada hadleen laba reer baa arrintaas saxaajoonay adigu waa isafgaranayno wiilyahow sidaad og tahayba gabar waa hooyadeed anigu hooyada xoolihii laga qaatay haddaan kuu sheego ood yaabisaad waa sheegahay walaal shan tiro oo xoola ah arig tiro geela faras iyo qorab usoo طبعا مريض وسنا قليل اسمه لا يسوق شيء اسمه دورج وحوي نما كديس ولين ثاني ما نقدر نحن نايا يورن بي وحوي فكرك اليوم هذا يبغى دخل وحوي ده انا ما يحشيني وانا ما فهمت انه قبل انه واحد وحوي اكبر النور marka waxa weeye rag baa waa waxa u dhahay gabayga maca waxa dad la xatma kula wada na way u dhahay laakiin waxa hore u daa saad arifta kala laga meesha waxa ka dhacay hore la weydiiyay xoolaha ma hay dadka tagaya saad la socotaan ba barnaamijka wuxuu ahaa bandhig dhaqameedkii fasallada qaraabada ee dhisay sare waxaan ku shaqeynaa gabadhii barnaamijka saad la socotaan ba caanuhu wuxuu qayb ka yahay hidiya dhaqanka dee baasiya caana lagama waayo qayb sida maanta waxaan muddo halkaan ku doonaa dadka caanaha loo wadaago caana nin wadaaga maqaada shabaan baa hadda lagu shubaayo si walba goonida isugu barooriya maanta waa wadaagaynaa marka halkan waxaan ugu yeeri doonaa laba qof oo halkaa caana ku wadaagi doonta maxamuud cabdullaahi iyo madax عانا بورا ما عانا قلوي عانا بورا ما عانا قلوي عانا بس عانا مش بشرع وعانا بيجو بيها وعانا بيجو بيها لنا أنا إني كذا ولاقينا ما كهرب ولا لو ولاقي شيء بليجو هره شو أبغى كذا الحمد
canaa naga dhamaysa abaala ma yariyo wariya ibaa la yidaa maa abaala dhow ومدري كم يعني على انه ومدري بقى له ما معاه إنه بعد ما هن عارف كده محمد أبو عمي وعمي وأنت وعمبو يا خوي يلا نوقف يجري وقف وين هو كان عنده هو مجد ترى كريم ما تصور حركة يا كريم ما مجد سوى شبه سافر يا شباب ما يعني أنت واحد ودي إبراهيم هذه مثل وير لها عندنا كيف وير لها يوم صبت ما هذه الوير لها بان شيء أنا عايز نيجي وراك بلا تعال عن كريم يا شباب نمل والله واحد لا يعني مثل لو يوم صهر مش مدور ليك يا سوى سوى هذا داخل يسوى ملك المكان كنتنا واقع حوالي الغربة أنا راح أبغى يكيرك صح وين أتقع هذا كله يمكننا وإنما قاعد شغل وحلو بنوي مالك قاعد شو من حيث ما كوري من حيث يا هذا إنه واحد قالنا عنادي سومالي ما عنادي باقي لما يدي باقي شيء محلنا في باقي فتينو مين باقي فتينو يكونون شيء معها هو عنادي هو سوماليين والله عن بدنكنا صوب بندقين أو قاعد صوب بندقني والله ساو من هذول معا متذكرين معا الليل معا وأبو الحوال كي صومالي وعام كواهي ما يركز كنت بين كدي نشاط صومالي من الدقين أي بركة وطقان قاف الله عنه بركة أنا يوم بنا بركة عندي يوم كسود وين معلم هذا كاري ليش معلم في واحد مقام إنه ولا معلم سوا ولا معلم ويا ولا معلم ويا معلم هل مع الموضوع لعل انت يعني كم بقراك التدوين دي بقى الكوسيه وهي اللي اواره اوكي بعض انا لو شكيت تبع لو شكيت انت هيا قاعد تدور على صوت رجال دين بعد مشكله هيا قاعد صوت رجال انا اقول لي واحد باش كان انا بالك معانا ما قال قال عادوا او صوت رجال ما يسوي كده يعني لا ما صبر على عواش وصفر الله لا قال قال يا كده قال وانا دور قبل لا أنا قاعد أقول لا أنا ضد كان معي لا بعض الطاقة ولا طلعت أنا عندهم خير يا جماعة كاري لا صوت عن محمد دوائر جماعة دور كاري أنا كواحد من ما تحسها ولا أو كواحد من هذا نروح للدورة ودي هذا كذا مركني والذي كان عاني كان دخل في كان في قرطان كذا من كان الواحد من الدورة عرفي الله يكفيه بينه أنا كمان بعرف عادي يا مان إني الله يسلمك وقبل يطلع خرجي الله يكفيه بينه كل لو دوامي تعب كل بس تقول تعب كل بس تقول تعب ما تدعيه تعب وعب كل دوامي لا دوامي بالله محمد عبد القادر وحسن
جزاء جزاء الله الله ولا قفادر سنة أم ليس أنا رأس كذي للسوق قاف كيف للسوق عند أنت ما أنا بريء ولا تطبع شيء اللي ترين بدي ويرجع عشان قبلها قاف قال لي لا تسلي المشكلة ورا ده عرف عرف ما جينا كان يا اسمعني يا رب يا حالة كيف الدورة يا وعروسي وعروسي جاتي اللي وهي ما أدري جوي يجيب والله يشوف علي أسمع كنا مرة الله أنت عروس كنا مرة الله هذا أنا قاعد بيننا لا حزن لك هو أنا يويد هو أنا يويد هو أنا وهذا الكذب يا يوم waxaan meesha ka maqnay gabadha meesha lagu guursaday sheekadii hore dhaqanku waxa lagu yaqaanay dhaqanka hore waxa lagu yaqaanay gabadha markii la guursado heerka gabadha ka socda waxay keeni jireen xeero waa la keeni jiray oo lagu xujeen jiray reerkiga ninku uu ka soo jeedo ama ninkii marka waxaa rabaa sharaxaad kooban xeerada wataa halkaas taallaa sharaxaad kooban oo tafasiran sida uu naga siiyo madar حاول ميكروفونك soo qabso ميكروفونك soo qabso كان وصل soo dhaweey baa ميكروفون كان قاري بسم الله dhaqanka Soomaalidu waxa lagu yaqaan halka loo yaqaaniyo dhaqanka Soomaalidu waxa lagu yaqaanay inantu marka la guursado hadda gobolada qaar ku soo dhawaaqay gobolada qaarna waa ilaaween sidaa daraaddeed baan u geliso tan xeero ma jirteen waxa ma laha hadiyada ugu weyneed ee dhaqan iskuul ka dhacay waxa weeye marka hadiyadan horta kajo badan beelaa أو إيش على ستة أو يقول كفر يا لوستا هدي الله بيدك كذا لكن واحد داني أنا شرح يكفيه حيرة واحد صاحب كذا ذا واحد صاحب إن أنت هيك اللي هو قصري لو وصل هذا كله قدامه لو وصل مركز كله قدامه واحد لك أنا ماشي قاف كمركز كيانو واحد فريا أو فرتان كذا كله هيك إن أنت قصري إنك كل شيء ما فريا مركز فران وحول هيك إن أنت كله تعمل ما حرام بقى حاجة تقدرية هيك إنه كل شيء waxay hadii furu waayaan xaal ma Allah waxa ka dhigantay inay aan geeyin ka dhiganta saadaradeed maanta waxa weeye meesha daarusmeel waxa joogaan waxaan doonayaa ku soo bandhigay xeerado ardayda fanfoorada maadaama fanfoor soo xidhan kuma jira shaqada oo furi maayaan culi maayaan baan leen furi maayaan waxa weeye waxa shaqo kule macallimiinta laga bilaabo form 3 ilaa form 1 fasalada form 3 ilaa form 1 iyo macallimiinta oo maamul horseeday waxa weeye maamuluhu noo dhuntay gobolada qaar baa lagu yaqaan xeerooyinka maamuluhu noo dhuntay sabiyeelkii hadda ugu jira maamulaha ila macallimiinta dabadna kaashka sare anaga ka furayna waxa xujaa waa xalig hoose
xarigaasi meel uu ka bilaabmay iyo meel uu ku dhamay garan maysid waa xujada meesha taala haddii aad garan haddii qofku xariga markuu cabaad tagana waxaa lagu dhufanayaa wax sakiina lama ogola wax waxyeelaya lama ogola marka waxa weeye taashka ma furan haddii ilaahay ka dhigo taashkiisna baa lagu furayaa xamaaladii waa kan